السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيني لبعض كوسابسان common factoriski أما واحد اللي يراده إسر كوداجان مرك هذا عاو حنقول صدرنا عشر لبعض أو إن مركورة common factorisk رادينه common factorisk ما كرادينه عن شيء greatest common factorisk لمبر إسر هو إن وداجان تروين كاس أو أوضة قيبسان مدام فاكتور مدام يوضة قيبسان كاسنا إسر عن شيء marka su'aalahan waxa la weydiinay ardada ahaanba su'aalahaas u diray oo waxa weeye ardada waxaan weydiiyay isirka ay wadaagaan isirka u weyn labadooda ka dhaxeeya ku yahay inay soo saaraan laba lambar baa soo qaatay ma badin waa lambar 18 iyo lambar 36 lambar 18 marka raadinaysid saan soo sheegnay casharkeena hore marka istaabiyada eega istaabiyada waxaan ku sheegay intaadan raadin common factoriska mid walba wixii isiradiisa gaar u xisaabi 18 isirada dib gaar u xisaabi maxaa yaala kuwan oranayo lambar 36 isiradiisa si gaar u xisaabi mid walba marka isiradiisa soo heshid kadib isbarbardhig ku samee lambar 18 yaa isiradiisa kamid ah oo halkan ku jira oo kamid ah sidoo kale isirada 36 sidii casharkeena hore aan ku soo sheegnay oo 7 wuxuu kamid ahaa isirada 21 sidoo kale wuxuu kamid ahaa isirada صديشان لبضاس بس بدل كوسمين مركا لبض نعم دام لقى هراي وحنا نقضي إسر سماهن وأنا إسر كوين كم فكتور إسكمرك الأجا وهي هاي سو كله وح كم دي هاي جريت السنوية لامبر كوين أو ذا قيب سمي كره لا تيكو صديشان تضبط النقنية ساعة 10 كيني هو كسر شغني مركز دي توان حتى حساب إنه سدية توان واتن سدية تمرك وهي هاي إسريدي حسابيننا isarada uu leeyahay hay marka hore mid sida normalka noo ahayd lambar 2 muxuu yahay lambar 2 si kasta waxa weeye waa lambar tirooyinka dhankooda dhaca weeye marka lambar 2 hadii hal lagu dhufto 18 waxa iska xisaabin karno oo aan garanno hal 18 lagu dhufto waa 18 haye lambar waxaan eegnaa marka lambarka ku xiga oo ah lambar 2 lambar 2 ma noqon karaa isirka 18 mise ma ahan inta badan hadaa xisaab xataa qaabkii hore dad ama isku dhufrida garanaysid ba table-ka hadaa garanaysid table-kii multiplication hadaa soo dhigatay ama xadisan tahay maadaama de xilligan marna casharkan qof walba waxaan ka filaynaa arday ah inuu garanayo ama sidii hore u qeybiyo oo sida ha sameeyo 18 inuu mataqana square root ma hu galiyo laba u qeybiyo hal uu ka yar yahay laba sadarteed labadan bal isku qabanaya marka laba lagu dhuftay 9 way Soomaan 8 way keenaysaa markii la kala jarana maxaa soo baxaya eber baa soo baxay marka laba way waxay kamid tahay isirada uu leeyahay lambar 8 marka laba kor baa saarnay labada tirada lagu dhuftay maxaa weeye waa tiradan kore 9 ka ah marka laba lagu dhuftay 9 ayana waxay kamid tahay isirada laba 9 lagu dhuftay waa 8 wanaye saddex mu kamid yahay uu kamid yahay waan soo gaabeynaa saddex lagu dhuftay 6 18 هي أفرنا أفر كامل عن صنّة كامل عن لحوة كامل هيدا وصاق اللحلة وده صدق لحوة سميتها صار لشغني ده تركوا كبد أهنا متشرت مركو السردة سديت هون وإحنا قلنا ساعة وكوان واتحي حام بكو قرية وفقت رزق ولي هاي لمر سديت هون محنا قلنا يا بلاغن كو حسابي وكو لمر كوغا سوقاتي هاي لوضع ما سوق هذا ياه sidoo kale 3 baan soo qaatay 6 baan soo qaatay 9 baan soo qaatay iyo 18 lama kama marka factoriska haddan xisaabinayo muxuu noqonayaa oo kaliya factoriska kaliya hadda xisaabinayo wuxuu noqonayaa kaliya waxa weeye lambar 18 isiradiisa kaliya soo qaadanaya laakiin ma dhahayo hadda wali ma soo saarin maadaama aan lambar 36 aan soo saarin isirada uu leeyahay isaga maxaan ma dhahayo lambar 36 iyo 8 waxa soo wadaaga marka hadda waxaan u leexanayaa dhankii 36na waxaan u soo xisaabinayaa qaabka ay mataqaana aan hadda 8 u xisaabiyay marka hadda bal aan galno 36 waa kan 36 hadda markaan qornay isagana waxa xisaabinaa isiradiisa ba si gaar u xisaabinaa tirooyinka uu leeyahay oo tirooyinka isku dhacaya de san hadda soo sheegnay 36 marka hore waxa sida caadada noo ahayd lambar 1 labada dhinac buu kamid yahay Soomaan hal lagu dhuftay 36 muxuu keenayaa hal lagu dhuftay 36 uu keenayaa arday marka hore istabiyadan aad ula socda
in labada tiro mid walba gaarka loo raadin isirada hadda kuwaan waxay noqonayaan waa isirada lambar 18 weeye ma ahan isirka ay wadaagaan marka saa loo socda mid walba gaarka isiradiisa oo la soo baxayna kadibna isiradiisa isbarbardhig ku sameeynaa hadalkan dhowr shil baa ku cesha filaya hadda hal oo lagu dhistay 6 maxay keentaa 6 bay keentaa hay lambar 2 6 mu kamid yahay tirooyinka keena haa uu kamid yahay oo hadii laba lagu dhufto 18 hadii lagu dhufto maxay yimaada 6 buu noqonaysaa hay 3 6 ma keentaa haa way keentaa oo muxuu ka imaanayaa 3 lagu dhufto 12 aad ila socda halkan waa qoray isiradiisa wali ma dhamaan lambar 4 baa ku xig 4 6 ma keenaa haa wuu keenaa oo waxa weeye 4 lagu dhuftay 9 lambarkan 6 isra badan buu leeyahay 4 lagu dhuftay 9 6 way keentaa ay 5 ma keenaa may 5 lagu dhuftay tiro 5 lagu dhufto 6 keenaysa ma jirto dabcan ayada waa ka boodaysaa 6na haddaan qorayna 6 wuxuu noqonaysaa 6 lagu dhuftay 6 lagu dhuftayna maxay keentaa 6 bay keenaysaa lambar 7 isagana ha u eegno lambar 7 ma kamid yahay isirada lambar 6 kama mid ahan isagana waa ka teginaa 8 ma kamid tahay ayadana kama mid ahan 9 waa soo sheegnay uu kamid yahay waxaan halkaan ma ku soo qornay 4 lagu dhuftay 9 uu kamid yahay Soomaa marka intaas ugu dambaysa oo ma taqana 6 lagu dhufto 6 ama 9 oo 4 lagu dhuftay waa isku mid marka sidaas ba waxaan ku dhameynay isirada uu leeyahay lambarkan maxaa la magacii lambar 6 marka soo taa 8 9 waa 10 kuwan kan 12 soo sheegnay waa qoran tahay 3 lagu dhuftay waa soo qornay inta badan waa dul marinay marka hadda waan taxaynaa marka factoriska uu leeyahay 6 isirada uu leeyahay maxaa weeye isiradiisa waxay noqdeen oo kuwan ba taxaynaa marka 1 2 3 4 6 kala waa soo noqonaysa wax muhiim maahan 9 12 8 waa qoraynaa halkaas ku qoraysa waa isirada uu leeyahay lambar 6 ay waa 1 2 3 4 6 9 12 18 6 intaas maxay noqdeen waa isirada uu leeyahay lambar 6 weeye hadda marka waxaan qoraynaa common factor-ka ay wadaagaan isbarbar ku sameeyna marka halkan 18 aan ku soo qornay halka tirooyinkiisa ku qoraynaa halkan 6 baan ku qoraynaa saa markaan qorno waxaan hadhow calaamadeyn doonaa qalin guud waxaan ku calaamadeyn doonaa kaliya isirka ay wadaagaan ayaan qorno kuwan way lambar 18 tirooyinkiisa waa 1 2 3 6 9 18 isaga qornay haye 6 waa kuwan waa 1 2 3 4 6 9 12 18 6 waa ka marka hadda kala saaritaankii waa yimi maxaa halkan ku jira oo halkan ku jira markaas waxaan ka helnaa wax noqonaya factoriska ay wadaagaan factoriska wadaaga markaas sheegnona maxaa sheegnaa oo kale isirka u weyn Soomaan sababta waxaan weynay greatest common factoriska asaguna waa noo muhiim inaan ogaano ardaygu ogaado lambarka weyn casaradan hore ku soo dhigana oo maleynaya common factor waxa ku soo dhigna greatest common factors ku soo dhigana laakiin halkaana isqaab isir ahaan aad ina u fiirtaan oo fiican tahay marka hadda hal iyo hal waa tirooyinka dhan kaas way xisaabsadaan halkan hal uu ku jira halkan hal uu ku jira halkan laba uu ku jira halkan laba uu ku jira isana xisaabino labana waa isir ay wadaagaan 8 iyo 6 saddexna uu ku jira saddex dhinacna uu ku jira halkan uu ku jira waa sax haye halkan 4 baa taag 4 dhinaca uu ku jira laakiin halkan leegama helayo saa darteed 4 waa ka tigna isir ay wadaagaan maahan haye 6 baa halkan taala 6 halkan waa laga helayaa halkan waa laga helayaa marka 6na xisaabino 6na waa isir ay wadaagaan 9 waa tan halkan 9 waa ku jirtaa isagana waa isir ay wadaagaan 9na waa isir ay wadaagaan halkan 12 baa ku jirta halkana kuma jirto saa darteed 12 isir kamid ah ma ahan halkan da fiir waxaan soo saarnay 4 isir kamid ah ma ahan isir ay wadaagaan 12 isir ay wadaagaan ma ahan saa la socda 18 halkan waa laga helayaa halkana waa laga helayaa labada dhinac waa laga helayaa waa isir ay wadaagaan 36na isir ay wadaagaan ma ahan marka isirada ay wadaagaan maxay noqdeen aan qorno
common factorieska ay wadaagaan waxaa weeye aan qorno waa hal labo keliya lambarada soo celin mayno hal labo way wadaagaan saddex way wadaagaan 6 haye 9 haye 18 okay intaan waa common factorieska ay wadaagaan labada dhinac ku jira hal waa kan halkan waa kan labo waa tan saddex waa tan 6 waa tan 9 waa kan 9 waa kan 18 waa kan 18 waa kan inta waa iterooyinka ay wadaagaan waa ku qor waa common factorieska isirka ay wadaagaan waa intaas 1 2 3 4 5 6 lambar baa ka dhaxaysa hal waa iska dar adu 6 lambar weeye haye hadda aan fiirino greatest common factorieski greatest common factor ku noqonaya isirka ugu weyn ay wadaagaan dabcan u jeedaan waa 18 isirka haddii hal mar loo qaybo oo tirooyinka uu kala tagayo matana ay isku dhamaanayaan waa lambar 18 bal hadda xisaabino 18 way labadan tir 18 halkan taalaga 36 soo qaado kale waxay noqonaysaa 18 loo qaybiyo waa hal 36 loo qaybiyana waa intee way waa labo Soomaan saas ku noqonaya marka macnaha waxa soo halkan halba ka soo baxaya halkan laba ka soo baxaya 1 divided by 2 noqonaya saas noqonaya laakiin haddaan u xisaabino hada labo kale haddaan dhano 18 iyo 36 xisaabiso labo tan u qayb wax noqonaysa 9 halkan labo u qaybi waa 18 haddana si xisaabi noqonaysa 3 u sii qaybi halkan 3 halkan u sii qaybi 3 waa 6 hadhow 3 u sii qaybi waa hal u sii qaybi waa labo 1 divided by 2 haddana soo baxay laakiin step dheer baa marna Soomaan kaasoo kale uma baahnin marka darteed saasa matana common factors waxa greatest common factors waxa weeye lambarka hadii isirka hal mar saa lagu qaybiyo tiradu isku dhamaanayso hadda 18 ka maxaan niri 18 u qaybi waa hal 36 u qaybi 18 waa labo 1 divided by 2 soo baxay laakiin laba marka hadda u qaybina waxa marna u jeedaa dhibaat hawl dheer baa maraysa marka saas wala socda casharkeeni common factorieski saas ayuu ku soo gabagaboway insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaad aad u fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.